maamulka gobolka Shabeellada Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku guuleystay in uu xal ka gaaro khilaaf sababay gacan ka hadalkaasi oo shalay ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellada Hoose. wariyahayga Cabdiweli Cali online ayaa warkaasi kulankan oo ujeedkiisu ahaa xalka gaarista shaqaqo sababtay dhimashada mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxa ku yeeshay xarunta maamulka deegaanka ceelasha biyaha maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiisha ciidanka booliiska gobolka iyo odayaasha deegaanka ceelasha waxaana mas'uuliyiintan ay ku guuleysteen in xal buuxa laga gaaro xalinta xiisadaas oo shalay si weyn looga dareemay deegaanka. qaar ka mid ah waxgaradka soo xaadiray madasha ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan xalka gaarista arintaas. waa mahadsantiin waxa waaye wax walba way dhacayaan nabadda way dhacaysaa dagaalkana wuu dhacaya naf iyo shaydaan ah jiro qaliif kuma aqooni jirin nin xol u yahay dhowr sano ma joogay wax dhibaato oo qaliif laga sheegay ma jiraan qaliif waajibkiisii ciidanimuu gudanaa gadoomiyaha la shaqeynaa gudoomiyaha deegaanka ceelasha biyaha iyo qaliif oo ka tirsan saraakiisha ciidanka booliiska ee aaga siinka dheer ayaa dhankooda tilmaamay in la xaliyay isku dhaca shalay dhex maray ilaalada gudoomiyaha ceelasha iyo ciidamada ka amar qaato sarkaalkan ku dhamaadeen insha Allah waxaan ku dadaali doonaa hadii maamulkii degmadii aan nahay inaysan wax damba dib u dhici doonin wixii dhacana si wanaagsan oo looga heshiis loogana dhaqmay wixii dhimanna oo gudoomiyaha noo dhameystiri doona insha Allah waa maasantiin waxa idin ballan qaadayaa wax dambe oo maamul ku saabsan oo dhibaato ah inaysan idin soo gaarin wixii maanta halkan ka dhacay saameyn dambe inaysan yeelan doonin maamul ahaan waa maasantiin waxa shalay to meeshan yara ka dhacay wax aan ku tala galnay ama noogu jiro qorshe may ahayn wax yaro shaydaan oo mataqaana buunbuuniyo waaye waxaasna nala kuma aqoon muddo fara badan deegaanka ka shaqeynay oo nabadiisa la daala dhacaynay haddana maamulkii noo yimid iyo mas'uuliyadii xaliyay waana ku qanacsanahay gudoomiyihii degmadana waa kan waa mahadsan yahay waana xalinay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax iyo wasiirka kalluumaysiga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si wadajir ugu booriyay dadka in laga shaqeeyo nabadda deegaanka la foole ceelasha biyaha shaqaaqo yar oo halkan ka dhacday shalay taasoo ahayd arin runtii lama filaan ku noqotay maamulkay heer gobol iyo dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka intaba waxaan la kulannay dhammaan odayaasha nabadoonnada deegaanka waxaan sidaas la mid ah la kulannay maamulkii deegaanka taliyaasha amniga ilaahay fadligii waxaa noo fududaatay oo noo suurta gashay annagoo si wada jira isu kaashanayna in wixii halkan ka dhacay shalay la iska gacan geliyo laga daawoobo deegaankan aan dib loogu celinin qolaad iyo dhibaato waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyihii degmada iyo taliye qaliif iyo dhammaan sida ay nabadda nooga qaateen loogu heshiiyey inay degmadu shaqeyso bulshadana u gudbino muxuu ahaa in dowladnimada iyo sareynta sharciga u shaqeyso. Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.